waxaa maalmihii la soo dhaafay bulshada isdhex yaacayay codad la faafinayo iyo fiidiyoyo sheegaya in laga maqlay waddanka Marocco ama Maghrib iyo Liibiya codka nibiriga ama libiriga buluuga ah. haddaba website carab leedahay iyo weliba sidoo kale baraha bulshada ayaa waxaa la isla dhex qaadayay in ay tani ka mid tahay calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha. haddaba barnaamijkeenan waxaan uga hadli doonaa dhowr qodob. qodobka koowaad waa maxay libiriga buluuga ah? qodobka labaad ma ka mid yahay calaamadaha qiyaamaha? xayawaankan lagu magacaabo libiriga buluuga ah waa xayawaan aad u xajmi weyn, iyadoona lagu sheego mararka qaar inuu gaarayo xitaa guryo badan oo dabaqyo isdul saaran xajmigooda oo kale, kuwaasi oo ka badan 5 dabaq. sidoo kale waa xayawaan carabkiisa oo kaliya lagu sheego inuu la eg yahay sida maroodiga oo kale, haddii uu afkiisa kala qaadana ay dhex seexan karaan dad ka badan 80 qof, ama xitaa ay dhex istaagi karaan, yacni siduu u xajmi weyn yahay awgeed. haddaba xayawaankan aadka u xajmiga weyn kana mida xayawaanada ugu da'da dheer ee ku jira badda, culimada qaar oo arrimaha xayawaanada ku takhasus ayaa sheegay inuu mararka qaar noolaan karo wax ku dhow 100 sano amaba mararka qaar ka badan. nibiriyada ama libiriyada ayaa inta badanba waxa ay xiiseeyaan ama ay door bidayaan ama ay jecel yihiin keli noolaanshaha, iyadoona nibiriguba uu nibiriga kale ka fog yahay masaafo aad u dheer. codadka nibirigan uu soo saaro ayaa waxay yihiin kuwo aad u qaylo badan, iyadoona lagu shaabaho oo la sheego inuu u codeg yahay ama codkiisu u weyn yahay sida codka uu soo saaro oo kale matoorka diyaaradda. xayawaankan qarniyadii la soo dhaafay badan ayaa laga heli karay, laakiin waxa uu u banbaxay ugaarsi aad u fara badan, iyadoo middaasi ay keentay inuu halis u galo in uu dabargo'o. balse mar dambe ayaa la mamnuucay in la ugaarsado xayawaankaasi lagu magacaabo libiriga buluuga ah. haddaba maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa laisla dhex yaacayay muuqaalada qaar oo xayawaankaasi leeyahay iyo codkiisaba, iyadoona dadku ay ku soo dul qoreen waa mid ka mid ah calaamadihii qiyaamaha. inta badan waxaad mooddaa dadka wax ku qora websaydyada inay yihiin dad aan aqoon iyo ogaalba u lahayn shareecada islaamka iyo weliba calaamadaha ay sheegtay in qiyaamuhu leedahay. haddaba su'aasha muhiimka waxay tahay, libirigan buluugga ah ama nibirigan buluugga ah ma ka mid yahay calaamadaha qiyaamaha? marka hore aan isla eegno calaamadaha qiyaamaha kuwa yaryar. calaamadaha qiyaamaha iyo qaabkay u qaybsamaan. qaybta koowaad waa calaamadaha qiyaamaha ee yaryar. waxaa ka mid a kala dilaacii dayaxa, waxaa ka mid a soo saaridii nebiga sallallahu calayhi wasallam loo soo saaray dadka oo idil. waxaa ka mid a calaamadaha qiyaamaha yaryar dhimashadii nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxaa ka midahoo kale sheegashadii nebinimada dhimashadii nebiga kadib. xorayntii baytulmaqdes baa ka mida. waxaa ka mid a fitanta oo ku faafa adduunka. waxaa ka mid a khawaarijtii soo muuqatay. waxaa ka mid a dilkii ama harajka ama isdilkii oo faafay. sidoo kale calaamadahaasi waxaa ka mid a in ay faafto caasinimadu. waxaa kaloo ka mid a shahaadatu zuurka ama markhaati kaca beenta ah, jahliga oo ummadda ku dhex faafa, dadka yaryar oo dhinta, mawtulfaj'aha oo bata, beenta oo dadka ku dhex faafta, kuwa ruwaybidada la yidhaahdo aan cilmiga lahayn oo wax xukuma, faaxishada ama sinada oo faafta, ammaanada oo la dayaco, ballamada oo laga baxo, cilmigoo dayacma culummadiyo baaba'da, qubuurta oo la qurxiyo iyo masaajidda oo iyagana la sharsharaxo, deriska oo la xumeeyo. haddaba maxaa ka mid a calaamadaha qiyaamaha ee ayaamahan dhaca? waxaa ka mid a dilka kaska ah, yacni dilka badan ee ummadaha dhex mara. waxaa ka mid a faaxishada ama sinada oo waddooyinku faaftay, gabdho dhar wata oo haddana qaaqaawan, akhlaaqda xun sida beenta, ammaanada oo la dayaco iyo wixii la mida, guryaha iyo dabaqyada dhaadheer ee la isugu faanayo. haddaba intaasi waxay ahaayeen qayb ka mid a calaamadaha yaryar ee qiyaamaha. haddana aan isla eegno calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn. calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha waxaa ka mid a addukhaan ama qiiqa, masiixu dajaal oo soo baxa, daabadda dadka la hadlaysa, qorraxda oo ka soo baxda halkay u dhacday, soo degidda ciise calayhi salaam, soo bixitaanka yaajuuj wamaajuuj, qasfi iyo dhulgooyn ka dhacda dhanka bari, sidoo kale mid ka dhacda galbeed, qasfi ka dhaca jasiiratul carab, iyo naar ka soo baxaysa yemen oo dadka u burinaysa halkii lagu kulmin lahaa. kuwaasina waxay ka mid yihiin calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha. haddaba nibiriga buluugga ah ma ka mid yahay oo ma lagu sheegay inuu ku jiro calaamadaha qiyaamaha? jawaabtu waxay tahay laguma dhex sheegin calaamadaha yaryar walaa xitaa kuwa waaweyn, mana garanayo anigu meel lagu sheegay in nibiriga buluugga uu ka mid yahay calaamadaha qiyaamaha. waa mid ka mid a xayawaannada badda ku jira, waana mid ka mid a xayawaannada ugu xajmiga weyn, sidaan soo sheegnaba ee afkiisa dhex istaagi karaan wax ka badan 100 qof. bal malayso xayawaankaasi inta uu xajmigiisu la eg yahay. maxaadse isdhihi kartaa sidee buu codkiisu noqon karaa? waa cod aad u dherer badan, dadkuna waxay arkaan waa iska fasirtaan iyagoo aan waxba ka weydiinaynin dadka cilmiga u saaxiibka ah.
dad badan ayaa waxay baraha bulshada ku soo qorayeen nibirigu wuxuu ka mid yahay calaamadaha qiyaamaha, bal halkee bay ka keeneen oo ay ka soo daliilsadeen? waa mid iyaga la weydiinayo, jawaabteedana laga rabo. ugu dambayn waxaan baraarujinaynaa dhallinyarada muslimiinta oo aan ku arkay meelaha qaar inay ku soo qoreen in calaamadihii qiyaamaha uu ka mid yahay codkan weyn ee ka soo baxaya xayawaankan lagu magacaabo libiriga buluugga ah. haddaba qof walibaa naftiisa isagaa ka mas-uulah. yuusan faafin wax aanu cilmi u lahayn, wax aanu aqoon hore u lahayn in ay jiraan iyo in kale. ha noqon kamannaasi laa ba's, sida dadkoo kale dhib ma lahan. haddii kale hadhowdii waxaad odhan doontaa sidaas dadkaa yidhi aniguna waan idhi. laakiin ogow dadku mas-uulkaa ma aha. naftaada adiga ayaa mas-uul ka ah. naftaada adiga ayaa iska leh. adiga ayaa su'aalo lagu weyddiin doonaa. adiga ayaa taxamuli doona ama qaadi doona mas-uuliyadda wax weliba ood afkaaga ka sheegtay. wax welibaoo carrabkaaga soo dhaafa adiga ayaa lagu weyddiin doonaa. haddaba walaal, adiga ayaa naftaada mas-uul ka ah. waxa aad faafinayso aad bulshada u soo gudbinaysana ha noqdaan wax aad hubto. haddii kale intii kaa qaadata dembigii ay ka kororsadaan ayaad wax ku leedahay. intaas baan ku soo gebagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.